iyadoo dhammaan dadka reer Somaliland waa cusub u bariyay isla markaasina ay ku faraxsanaayeen doorashadii xor iyo xalaash ahayd isla markaasina amnigu ku dheehnaa ee ka dhacday Somaliland gabi ahaanba ayaa waxaa si weyn ugu farxay beesha fiqishini ee ka soo jeeda beesha habargidir ee Soomaaliya degta waana beesha hawiye ee ugu weyn Soomaalida kuwaas oo ku farxay doorashada Somaliland maadaama uu ka soo baxay nin hawiye ah gaar ahaan fiqishini oo habargidir ka soo jeeda ninkaasina wuxuu ku soo baxay ninkii ugu codka badnaa gobolka Sool waana reerka ay inta Somaliland dhisnay ilaa 1960kii aan gelin golaha wakiilada iyo golayaasha aan ka baag dhawaanba waana reerka in badan isku dayay inay galaan balse lagaga xoogay arrimo qabiileed waana reerka xor iyo xalaal waxoodii ku helay hadda ee golaha dhex fadhiya sidoo kale waxay ku cadeynaysaa doorashada Somaliland inaanay ku xidhnayn qofka la xidho haddaba waa ninkan oo la xidhay markii uu tartamayay isla markaasina walaalaha ku jiray kana sharaxna xisbiga wadani haddana ku soo baxay ninka ugu codka badan gobolka Sool waana ninka tirahaan bahal jeer la xidhay balse hadda Somaliland laga ogaanay inaysan isku xidhnayn inay xukuumaddu ka soo horjeedo isla markaasina ay mar xidhay ee aan la ridaynin qofkaasi balse uu xor iyo xalaal ku soo baxay oo uu helay codkiisii iyo xaqiisii daawadayaal intaasi kadib waxaan idinka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan maadaama waan waqti gelinay like-na aad dhac ku siisaan si uu dad badan muuqaalkani u gaadho way uga faa'iidaystaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam